meeshan waa meeshii masiibada ay ka dhacday maalintii sabtigi ummadda Soomaaliyeed ee masaakiinta ahayd ee xamaalanayay ee marayay ee ku baaba'een maanta waxaan isku soo wacnay dhalinyaradii magaalada gaar ahaan dhalinyaradii wax baranaysa jaamacadaha iyo iskuulada iyo dhalinyaradii iskala qaantay ee ayaantan gurmadka degdega waday marka waxaan ka wadnaa meeshii dhiigii iyo hilbihii hore hadda gacan aan ka soo helnay meel meeshaana inta laga soo bixiyay waxaan wadnaa hilbaga go'an oo yaryar aan ka soo bixinay meelo badan wixii wili hilbihii go'naa magaalada way ku jiraan dhiigii aa u jeedaan waxa meeshaan laamiga daadsan waa dhiigii oo laga faqaaya dhalinyarada ay ka faqaayaan marka dhalinyarada oo dhalinyarada soo xilqaantay oo saakay cid soo bixisa lahayn laakiin annaga aan u wacnay oo dhahnay kaalay maanta waa maalinteennii marka dhalinyaradu way u taagan yihiin wax gacan la siinayo waa gobolka Banaadir gudoomiyaha nala joogo naga saaciday agabka aan ku xaqayna iyo waxa aan isticmaalayna marka maanta waa arrin waa waji kalanto cusub waa dhalinyarada soo xilqaaman dhaxda soo xirtaan oo soo diyaar garooba waxa ay sameynayaan marka waan arkaysaa daraanka ka muuqda iyo murugada iyo waliba inay dhiifoon yihiin u dhiifoon yihiin dalka difaacdaan والله بحكر ما سوى runtii khibradeyda aan u leeyahay emergency-ga 10 sano ayaan ka shaqeynayay aamin ambulance aan la shaqeynayay ka sokow inaan founder ahay ama aan director ahay waxaan ahay qof haddana ka shaqeeya ama baabuurkooda ama bukaanka wax ka qaada weli ma arkin qarax noocaan ah oo sidan u khasaaro badan geysta waa kii igu horeeyay ebed aan xitaa maqlo inaan arkaba iska daay waa kii igu horeeyay waxaan runtii cajaa'ib lahayd ama aan u mahad celinayaa shaqaalaha aamin ambulance oo aan marna seexan habeen iyo maalin shaqada xitaa markay dhamaatay weli aan ka degin shaqadii oo ilaa 3 maalmood la soo dhaafay u qaaday subaxii airportka dadka geynay marna kuwii meedka qabuurta geynay marna yani dadkii ahladooda kala maqnaa isku raadinay runtii shaqaalaha aamin ambulance-na aad ayaan ugu mahad celinaya shaqada weyn ee qabteen aamin ambulance yani waxyaalaha la yaabtay ama ka cajaa'ib galshay waxay ahayd يعني نمبر كان وحوها قرحنا كي ugu dhimashada badnaa wuxuu ahaa kii ugu dhaawac badnaa wuxuu ahaa kii ugu qasaaro maaliyad iyo naf badnaa dhinaca kale waxa leeyahay la yaabno waxa kamid ahaa in cisbitaaladii ay buuxsameen oo la waayay dadkii meel la geeyay waxay dhici jirtay marka hore dad soo qaadno ama qarax meel ka dhaco inuu ku filaa jiro hal cisbitaal laakiin hadda waxaan geynay 6 cisbitaal ayaa geynay kolkaabi 6dii buuxsameen ordo khan cisbitaalan geynay madiina cisbitaalan geynay kalkaalan geynay waxaan geynay Soomaali Suudaanis isbitaalka Masaarida oo Zamzam loo yaqaan daaru shifaan geynay dhammaantood way buuxsameen waxay capacity-gooda ka badnaadeen dadkii marka waxa leeyahay runtii aamin ambulance oo cajaa'ib ka badnaa qaraxan ayuu kamid ahaa waxyaalaha marka aan isleeyahay waa loo baahnaa isma oran jirin waa loo baahnaan karaa waxaan yani isbitaalantan ka badan laakiin waxa loo baahan isbitaalada jira laftirkooda inay u diyaar garoobaan emergency inta ka badan oo dhici karo oo ay badiyaan sariiraha lagu qaabilo dadka emergency-ga ah dhinaca kaleeto aamin ambulance waxay u baahan tahay inay baaxadeeda si u balaariso inay hesho ambulance intaan ka badan inay hesho walkie-talkie ama radio call waayo markii uu dhaco qarax noocaan oo kaleeto ah qof walba ama qoys kasta wuxuu u cayaa dadkiisii ahaladiisii telefoonka wuxuu noqonayaa jam marka lagu xiriir karaayo sida darteed aamin ambulance waxay u baahan tahay ama ay u baahneed yani walkie-talkies haddii aan haysan lahayn coordination-keena ama xiriirkeena ama isku xirkeena shaqaale ayaa fiicnaa lahaa waxay noo fududay lahayd markaas in aan badbaadino intii hadda aan badbaadinay in ka badan شريف عبد القادر الله waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka howlgalo meeshii dhibaatada ka dhacday alxamdulillah waxa ilaahay maadiisa in kumanaan dhalinyaro ah ay la qayb qaataan barnaamijka nadaafadda caasimada ama dib u soo celinta bilicdii meeshii wax ka dhaceen waxaan ku baraarujinayaa dhalinta ilaalimada inay sidaan oo kale nala sameeyaan nagala qayb qaataan hagaajinta dalkeena maaragtay dib u soo celinta bilicda caasimada insha Allah waxaan leeyahay guuleysta hore wada shaqada haka daalinina insha Allah intii dhimatay Ilaahay u naxariisto inta maaragtay dhaawacna Ilaahay u wadayo maaragtay ha caafiyo magacayga waa Cabdirashiid waxaan kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaan maanta isugu soo baxnay inaan dadka walaalahan u muujin inaan garabkooda nahay in dadka Soomaaliyeed ee la xasuuqay inaan ka xunnahay inaan maanta muujino u soo baxnay
waxaan u soo baxnay inaan dadka meesha lagu xasuuqay la baabi'iyo meesha lagu baabi'iyo inaan nadiifino dadka la xasuuqay inaan u muujino inaan walaalahoodna inaan ka xunnahay dhibka dhacay inaan ka xunnahay sidoo kale dhalinyarada waxaa u daaqayaa inay ka dhiidhiyaan waxa laga soo baxa waa in dhalinyaro la baabi'iyo waa in dhalinyaro la dabargooyo tan masiibo qaran waaye waxay u baahan tahayna waa inaan anaga midoono tan haddaa ku midooyn weligan yaa lahan midooyeen dhalinyarada waxaa u daaqayaa inay gacmaha iska shubaan dareenkooda muujiyaan shacabkoodan inay u gargaaraan